waxaan ahay 80 jir gabartaasan dadka haya sababka dhinacay cadaaday taqaatirinta waxay yiraahdeen xagga inta wax uga qaban karno nafaan ahay waxaan idiga doonayaa inaad ii bandhigtaan adduweyna waa Aabe Axmed Xareed Xasan oo ah 80 jir xaalad adag oo caafimaad la'aan ay ku haysato duleedka magaalada Muqdisho aabahan oo aan wax garab ah dad iyo dhaqaale toona haysan ayaa xanuunka haya ku sababay in dhiigu ka miirmo markasta waxa uuna bishii u baahan yahay ugu yaraan 3 jeer in dhiig lagu shubo mana haysto wax lacag ah isagoo sheegay inuu xitaa la yahay wax uu quuto waxa uu ka sheekeynayaa xaaladiisa isagoo dalbaday in loo bandhigo bulshada Soomaaliyeed kana codsaday in wax lagu qabto si aan kala har lahayn xaaladaydu waa meel xure maraysaa waxa waa jiranahay cudur baa haya dalka wax waa leega qaban waayay dibadda boogi dalka wax lagaaga qaban karaa la yiri waxaan haysta male bishii 3 joor aan dhiig leegu shubaa dad Soomaaliyeed muslim ah ay tabaruca haddana nafaqo dhiigii igu soo celiso male oo qarash ma haysto gabartaasaan agteeda jooga 4 ciyaal haysto marka waxaan u baahanahay dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa in wax la qabto muslimiinta Soomaaliyeed inay wax ay qabato adduun weynaha inaad ii bandhigtaan Soomaaliya uga baahanahay waxaan ahay 80 jir gabartaasan dadka haya sababka dhinacay cadaaday taqaatirinta waxay yiraahdeen xagga inta wax uga qaban karno nafaan ahay waxaan idiga doonayaa inaad ii bandhigtaan adduweyna Soomaaliya kii dalka joogay kii dibadda jooga waa wiilashaydii waalidaan ahay waa walaal in muslim ahay waa tabar yara in wax la qabto dalka iyo dibadda Soomaaliya ka codsanaya maanta ka codsanaya xaaladiisa ayaa wax looga qaban karaa dalka dibadiisa sida ay taqaatiirtu u sheegeen baahidiisa ugu weyn maanta ayaa ah in la geeyo goob caafimaad oo lagu baxnaanin karo isaga oo ka raba qof kasta oo awooda waxa wax laga qaban karaa in wax la tabaruco oo Soomaaliyeed arko oo wax la soo diro oo ku aado dibadda ama dalka wax laga qabto nafsadii waxaan cunaan haysan ma bahayso waa ka lugaha bararay waad arkaysaan lugahayga bararay hurdo ma aqaano hurdo ma jirto habeenkii gabartaas igu kor dhafarta ay kor fadhiisa hurdo ma aqaano ilaah baa igu og meesha saaka fadhiisa fadhiya awo iyo maal hurdo male adduunka raba inuu wax ka qabto Soomaaliya ka dhashay in wax la qabto kii dalka joogay kii dibadda joogay in wax la qabto adduweynaha ii bandhiga waa iga caddahay meel aan u dhaqaaqa male dalka wax waa leega qaban waayay waxaan rabaa in wax la qabto waxaan rabaa in wax la qabto waxaan rabaa in wax la qabto aan u baahan 80 jir ah madaxda ugu sareysa dalka ayuu si gaar ah u weydiistay garab istaag maanta oo ah waqtiga ugu baahi badan yahay 80 sano ee uu soo noolaa waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha wasiirada ciidamada qalabka sida saraakiisha Soomaaliya in wax la qabto in madaxda Soomaaliya wax ay qabato in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha madaxda Soomaaliya inay wax ay qabtaan aan ka codsanayaa waxaan in aabba waalid 80 jir in wax la qabto dad bahayo qofkii muslim ah oo Soomaaliya oo ila soo xariirayo raba inuu i kaalmeeyo wuxuu igala soo xariiri karaa lambarka furaha 8 9 73 46 Abdullaahi Axmed Qorane warbaahinta qaranka Muqdisho